وناجي جبريل حسن وكوكب صومي دقمة فردقاب يقبل كسناق انتي ودع عيسي توانكي بيش اللي حاتو توسن توانتي الى لحية توانكي بيش اللي حاتو توسن توانتي وعما ذا كسور بحي شركة بيلوين جبريل حسن سعد يونس وحايا هايين لمبركو إلا أدكايا مدني ماذا بيلوين جبريل حسن سعد لمبر لبا إن حالكو هبون لغا قارو ولادها صور نقنقضي ايه ديغان كاكتيري كدعي شانتي سنة ايه ودن بيهي أما شانتي سنة لسور دافي لمبر صدح وحاكلا أولا ليال كميدا حاقو دبدا شركة إن اندع عصوب لغو ايغو المبارسنا لغو سميهيو صابها كاني إن دقالدن iyo colaadahani gobolka ay ka soo noqnoqdaan sanaag xalku haboon laga gaari kari waayay lambar 4 in beelaha dhinacyada ka xiga Jibriil Xasan oo kala Maxamuud Garaad iyo Muuse Abakor oo ay beeshu la tahay dhaqan wadaag in lagu la dhaqmo daris wanaag waa in la ilaaliyo lana dhawro deegaanka lagana daayo abuurista lagu abuurayo meelo badan oo la magaaleynayo iyada oo taala la kaashanayo dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasaaraddeeda deegaanka ee sida gaarka ugu xilsaaran ugu dambeyntii shirka beelaha Jibriil Xasan wuxuu taageerayaa shirka Jabuuti ee wada hadallada uga socda Soomaaliland iyo Soomaaliya beeshu waxay soo jeedinaysaa walaalayaal kana codsanaysaa si xushmad leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inuu sii daayo ragga beesha ka xidhan gaar ahaan Daawud Saalax Ciidle Cilmi oo xarigiisa ka dhamaaday muddo dhaafna ku jira isaga oo runtii intii uu xidhnaa ay soo food saartay duruufo caafimaad oo kala soo datay intii jeelka uu ku jiray waxay beesha Cabdiraxiin Muuse Abakor ee uu xidhan yahay Xuseen Cali Muuse waxay ugu baaqaysaa inay nagala xaajoodaan waxa uu xidhan yahay